lacagtaan kugu leeyahay timaha kugu yaalla ka badan dibariga timo weyn markuu inta isku hubsado halka dhigtay wuxuu yiri warniyow raallah waxa waa wada sax inaanu Ethiopian calendar bal xisaabsanay taariikhda Ethiopia dhowr sanadood inaanu adduunyada ka dambayno miyaad ogay markaan ku Cabdisalaam Hariri baa la yiraahdaa ayaa wuxuu intaas adiga baxsatay haddaad ahaan lahayd aadan Cusmaan aakhiro kelmaddaas isticmaal ilaahay aakhiro meeshu doonahay geeyay soddonka xabadood qoriga ku jira wallaahi billaahi tallayna xabad kaaga reebay dumar guri sandaqada hor taagan damiidkiina waa kaas meelaan yaala ayaan ku iri walaal masquushiina ma galaa markay naftu ku haysana xaraga waa laga tagaa moogta iyo xishoodba toiletku haddaan istaago waa jiingad iyo sibidh yar iyo boco iyo joonyad iyo wax la isku kabay intaydan horta dabadday taala maxaan shaa cabbi naftiiba weydiisay markaasaan ku yiri waa mahadsantiin oo deena ciideeyna man baan ogaa waxaan isii ka warto deemeedo la karsa diyaarad baa waay waxyaabahan bariga ogaaday ama dhiiranaan aynu ku sheegno ama waale aynu ku sheegno Soomaalidu sida quruumaha kale uga duwantay 26 gaari baa Soomaaliya darawallada waxay yiraahdeen anaga baxbashibeyna moodayaan haddii wadada isu keen taagaan jiiraba nabad saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad bad qabtaan meel walba iyo si walba oo markaas idinku soo gaarayo muuqaalkan waxaan joognaa magaalada Boorama waxa dhinacayga fadhiya Cabdisalaam Ibrahim Hariri mid kamid ah suxufiyiinta Soomaalida ugu caansan uguna saameynta badan maadaama toddobaadyadan laga yaabo deegaanka Soomaalida in laga xuso sanad guuradii aasaaskii xilligii la aasaasay maamulka deegaanka Soomaalida waxaan jeclaan lahaa waraysi xiiso badan oo ka turjumaya xaqiiqooyinkii jiray sanad ama 2 sano markii uu kilalka dhisnaa isla markaasna caasimadiisa ahayd magaalada Guday inaan sawir buuxa idan ka siino sidoo ahaa Cabdisalaam Ibrahim Hariri oo xilligaasi ka socday laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu u yimid magaalada Guday si uga u tabiyo xilligaas abaar ka jirtay deegaanka Soomaalida Cabdisalaam ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka waxaan jeclaan lahaa inaan waraysiga galno Cabdisalaam ujeedada aad u imaanaysay safarkaaga wuxuu ahaa oo aad u soo qaadatay ruqsada inaad tabisid abaartaasi sanad ku ahaa taariikhda Ismaaciil aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya waraysigan 95 bay ahayd bishii December 10kii ugu dambeeyay waxa deegaanka waqtiga ka jiray sida dad fara badan ay la socdaan waxa Soomaalida iyo bini'aadam oo dhammi uu ka aacudu bilaysto ama uu ka ducaysto col iyo abaar baa ka jiray macaluul baahsan oo qayb ahaanna abaartu keentay qayb ahaanna duruufihii xagga amniga deegaanka ka jiray ay keeneen dadna aniga safarkaygu wuxuu ahaa London sida BBC-da ay ugu tala gashay Addis Ababa diyaaradda transit ku maraysa Dirdhabe deedna Goday and back inaan ruudka laftiisa ku soo noqdo meel kale la ima dirin dabadeedna Goday baanu dabcan ku horeynay markii Addis aanu ka baxnay anigoo qaatay ruqsadii wariyeennimo wasaaradda warfaafinta igu ogolaanaysay inaan deegaanka ka shaqeyn karo maadaama abaarta aanu socday iyaguna ay u baahnaayeen cid caalamka gaarsiisa si kaalmo loo helo Goday maanta waynu ka warhaynaa siday tahay 2 sano u malaynaya ka hor inaan wada tagnay aqliga hawaayin haddii tilmaanan ka siiyo qofka Goday waqtiga tilmaan uga baahan sida sawirka guud bixin karaysa magaalo la sheego horta ma ahayn magaalo aad u yar bay ahayd waxay noqon lahaydba dadkii deegaamada ku dhow Goday ka soo barakacay oo run ahaantii Ismaaciilow qaarkood aad baan uga xumay maanta inaan sawiradii hayno London ay iga yaalaan qaarkood waxay noqdeen muuqaaladii lagu arkayay 29kii Baydhabo oo kale ama Bakool oo kale abaartii darreyd muuqaalo sidaas ayaa ka jiray waxaan xusuustaa in la geeyay 7 caruur ah oo agoon ah oo hooyadoodna istiri bal meel wax uga raadi oo ay ka dhaqaaqday
وكم قنتها oo ay ka maqantay markaa dabcan dee waa dad kala daryeelayay oo dadkii hawlaha gargaarka ka shaqaynayay ayaa daryeelayay laakiin dee waad qiyaasi karaysaa hooyada ka dhaqaaqaysa 7 sidaas isla bal waxay afka geliyaan inaad u soo hesho muuqaalo aad iyo aad murugo u leh ayaa ka jiray xagga nabadgelyadana ismaaciilow waxaanu inta badan wada soconnay gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka taliyaha bilayska maadaama dee ammaankuna oo aad isaga barakaysnaa oo ina laftu deegaamada aanay ka fogeyn waqtiyada qaarkoodna magaalada ay soo geli jireen dabadeedna shanta galabnimo ama shantiyo barhka intaanay horta qorraxdu dhicin waa inaad qolkaaga ku jirtaa xageed markaad deganeedeen ma xasuustaa waxaanu deganayn guriga martida magaalada goday waxa uu ahaa guri waqtigaa lagama fikirayn guri marti iyo wax la hagaajiyo markaa guri iska dee maarata maasha allah barakaysan ayuu ahaa aad iyo aad laakiin dee sariirii yaallaan waxay la socday ninaan walaalno ismaaciil hareer la yidhaah oo addis intaanu isugu nimi ayaa wuxuu yidhi warniyo bal hadda godaydii 77kii soomaalidu ka sheekayn jireen anna aan soo arko ninkaa odayga ahi isagu dalxiis baabu dee markaa u socday waxaa naga jabuuti buu degay imika waxaa naga gaadhay libaax ninaan aqoon ayaa lax ka dhigtay saxafiyiintu waa taqaanaa dee marmar baa shaqadu kula gelaysaa ismaaciil oo meelaan aadan ku talagelin aanad ku talagelin ama xitaa filitaankaagii xaaladdu dee ay ka duwan tahay shantiyo barhka ayaanu qolkayga ku ururi jirnay madaxda dawladdana nin kastaa gurigiisa iyo halka ugu dhowow ku nabadgelayo ayuu ku carari jiray dawladnimadu waxay shaqaynaysay haddaan runta kuu sheego intaa qorraxdu soo jeedo markii aanu 4 maalmood joognay ee ilaa mustaxiil aanu gaadhnay shaqadayadii gabagaba noqotay 4 maalmood baa qorshe ahaa inaanu joogno markii 4 maalmood aanu joognay shaqadii noo dhammaatay dadka waxay isweydiinayaan xilliga cabdisalaanow ma jiran isgaarsiin iyo habkan aan hadda wax wararka aan u tabinno sideed ku gaarsiin kartid macluumaadka BBC telefoon baa dee dabcan la helayay laynkii telefoonka ahaa markaa warbixino iyo waraysiyo la iga qaado mooyaane inta badan wixii aanu duubno London baa lagula noqonayo iyagoo habaysan oo barnaamijyada markaa la soo deynayay afreesha markaad joogtay markii aanu beriyo kala bixi lahay ayaa la iska raalli ahaada diyaarada ma jirto 4 maalmood oo dambe waxaa lanoo sheegay in diyaaradihii loo weeciyey meel masiixiintu ay siyaartaan qulubi la yiraahdo anigu waan iska xijisan lahaa runtii waan joogi lahaa go'aankayguna saasoo ahaa 4 maalmood oo dambe goday baan iska sii joogi lahaa ilaa inta diyaarad la helayo ninkii dalxiiska hayaan walaala ahayn ayuun baaba yidhi wallaahi bilaahi tallaahi inaanay tiri joogis lahayn وما هلكن أفر مع الموت بتشوفه وحاجات قبل وحصوها لي قاري قاد لا ويسوي سؤال بركيسن وأجاري كلية وقت جا كونفوي الآن يدون إلى للسعن شيت كجاري كلية مريشري وحها قاد له والله قلا دقاد له سادوك تهي ما دام السعود كذا بدنه ميلين معلي سيجا ميلين معلي gaarigii buu soo helay isagoo wada oo inankii la soo heshiiyey darawalka ahaa oo noolkii soo bixiyey buu yimi markaasaan ku yidhi maynu raacnaa waa arbaca ismaaciilow waxaan filayaa inay 29kii ahayd 29kii December 1995 oo 95 oo arbaca ah 12kii duhurnimo goday ka baxay haddii aan ogaan lahaa safarka iga horeeyay waqtiga oo la isiiyay 2 milyan oo dollar wallahi inaanu mareen waxaad la kulmi doonto waxa aanu la kulannay ilaa berigii dhaweydaynu wada maraynay ismaaciilow shaki badan baa igu jiro waxaan sababo ma halkii baad maraysaa waagi dhawtay safarka deegaanka ku joogay imika 4 saacadood baa loo kala socdaa haddaan qaldanayn
goday iyo jigjiga waa 5 saac 6 saac 5 saac 6 saac waa wada laamiya markaanu marayno tuulada dhanaan degmada dhanaan deemka degmay noqotay bariga tuulada oo goday ku xigta ayaa waxaan la kulmay nin oday oo aad jaajaale u ah wad yara istaagteen magaalada waanu istaagnoon ka shaahinin dadna markii la ii sheegay baa wuxuu yiraahdaa ilaahay baa maanta ila ka kulmiyo lacagtan kugu leeyahay timaha kugu yaala ka badan bariga timo weyn baan lahaa waxaan isku aragnay wuxuu yidhi idaacadahan iyo BBC-yadan iyo waxaan maanu aqoonoo dadka reer miyiga ayaanu ahayn markaa ku risaad igu leedahay dadna wuxuu yidhi dadkii Soomaaliya ka soo qaxay ayaa noola yimi dhageysiga BBC-da markaanu aragnay radio-gii ay ku xoonsan yihiin ayaanu isnidhi buu yidhi waxaan reer magaalka dhageysanayo baladina la dhageysta caruurtii ariga iyo maqasha noo raacaysay ayaa markaa arkeen buu radio-gii oo dadkii waaweynaa oo dhan ku foogan yihiin ayay iyaguna yidhaahdeen waxaan dadkii waaweynaa dhageysanayo idina la dhageysta daadan xoolii baa iga dayacmay buu yidhi dacwo iyo waraabaa iga laayay ninkii meesha ka soo hadlayayna waa adiga markaa lacagtii adigaan kugu leeyahay waa sheeko aad u wanaagsan oo dee organizationka berigaa la shaqaynayeyna promotion oo xayeysiis wanaagsan iyo sida dadku ugu xidhan yihiin odaygii anigoo ka duubaya ayaa ciidankii waktigaas dawladda yaa hadhiigtay magaca kabay xanaaqi jirin Soomaaliya ayaa loo sheego nin baa halkan duuduubaya wax show dhulkana wax ku duubaya Ismaaciilow nin shaad cadiba ma maro iska daa in de wax la duuduube waa war zone waa goob dagaal nin laba xidiglaha oo ciidanka watay iyo ciidankiisa baa yimi waxay u yiraahdeen stop the recording jooji duubista oo ina mari markaasaan joojiyo nimankii baan raacay istara problem waxaan ku yiri ma dhibaato jirto ninku af Ingiriisi wanaagsan ku hadlaya wuxuu yiri halkaasaan kuugu sheegaynaa ina mari markii aan raacay baa ninkii aan walaalahay Ismaaciil ayaa soo abaabulay dadkii dhanaan reer dhanaan ninkii xiradii baa lala tagay ninkii kale soo dhacso dadkii magaalada na soo daba galay laba xabadood baa ku rideen dadkii orodka ka dhacay aniguna markaasaan sii yaabay markii dadka risaasta ku rideen laba xidigliyo kaliya xafiiskiisii la galay dabadeedna wuxuu igu yiri keen baasaboorkaaga iyo waraaqihii ruqsadii lagugu ogolaaday labadii baan u dhiibo Ismaaciil warqadii wasaaradda muu eegine baasaboorka ila wana indhaas ka tuuray baasaboorkii baa wuxuu yiri hadal wuxuu iga bilaabay fiisahaagu wuxuu dhacay bari aynaan shuqul ku lahayn markaasaan ku yiri bil baan haystaa seero 10 maalmood baa iga tagay oo 20 baa ii haray wuxuu yiri soo kan ma hafiisi sanadda koor buu dhacay haddana dheydkii baan farta u saaroon yiri warqadana way isleeyeen wasaaradda wuxuu waxa ka baxa dhowr sanadood buu fiisaagu dhacsay wadankana sharci darrad kaga shaqeynayay ninkiina sidaan ku sheegay waa ninka af Ingiriisiga wanaagsan ku hadlayo waa nin mutacallima waxna akhrinaya waa ninka ciidanka meesha haystay bade ciidan meesha joogay baa haystay markaan arkay inuu indhaha iska tuurayo ayaa waxaan qaatay mid ka mid ah go'aamadii igu adkaayo weligay qaato